ciidamada ammaanka gobolka Awdal oo muddooyinkii u dambeeyay heegan ugu jiray sidii ay u soo qaban lahaayeen qaadka sifada sharci darrada kaga soo gudbaya xuduudka deegaanada gobolka Awdal uu la wadaago dalka Itoobiya ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen qaad sifo sharci darrada ku soo galay gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal haddaba howlgal uu hogaaminayay taliyaha ciidamada qaybta Bileeska gobolka Awdal gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Colayo oo qaadkani lagu soo qabtay ayaa waxay ku soo bandhigeen fagaaraha khayriyada ee magaalada Borama ugu horeen cadadka qaadkani iyo eedeysanayaashii lagu soo qabtay waxa ka warbixiyay taliyaha ciidamada qaybta Bileeska gobolka Awdal gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Colayo waxaanu halkaasi ka sheegay wajigii sagaalaad ee gubisa jaad oo maanta Nohoryaal jaadkaas oo laga soo qabtay magaalada gudaheega cidii ka dhaga adeegtay amarka miisaskii ama kolayadii ay ku iibinayeen iyo jaad ka soo galay tuulada Gorayacawl jaadkaasina wuxuu ka kooban yahay 166 marduuf oo u dhiganta 664 mijood iyo 13 kiilo oo jaada waana qaybtii sagaalaad ee gubno waxaan fariin dheer iyo mid gaabanba u direynaa dadka caadaysti inay ka dhaga adeegaan amarada qaranka inaanu talaabo sharci ka qaadi doono waad ogtihiin horey waxaynu u geynay maxkamadda 15 eedaysane iyo jaad aad iyo aad u fara badan oo lagu xukumay 13 eedaysane imikana maxaabiis kale oo ah kuwii aanu ku qabanay jaadkan ayaa garsuga insha Allah markaan maanta hawshan dhamayno bari maxkamadda la horgeyn doona geestooda waxa hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Borama Salebaan Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal waxaanay bulshada ka waayigeliyeen cawaaqib xumada kaga iman karta qaadka sifada sharci darrada ku soo gudbaya sidaan hadal ku celcelimayno la sabcin maayo waa waxaan horeydu ku sheegnay wuxuu qayb ka yahay kortiga xanuunkan coronavirus-ka oo ah wax dantiina ah waxaan nasiib darro ah haddaanay dadkii dhegba jalaq u siinayn wixii dhibaato ku haya ee looga digayo waa nasiib darro kolay saa taliyuu idin sheegaya hawl joogtanaysa maaha waana la wadayaa gaadiidkii hadday bajaaj tahay iyo hadday fitis tahay iyo hadday gaari weynba tahay maxkamadda la isugu geenaya dadkii watay haddii la yidhaahdo hadalku waa saa la sheegay qaadkaas wuxuu ka kooban yahay 13 geed iyo 166 marduuf qaad isagoo raranaanu qabanno malaakiin dilaan noogu dambeeyey waa kii sagaalaad ee gobolka lagu gubo anigu imika waanadan badan iyo waxaanba waan ka baxayoo annana waannu eeganaynaa meeshaannu ka helo waannu gubi waxaannu ka helona waannu xidhi idinkuna dee haddaa iska dayn weydaan waynu isugaadhsanuun waayo wuxuu bilbay bahayaano bishaa iska daayaa laydin yidho iska nastoo rabadaan oo annana aan rabadaan oo iyo inaan iskuba dembaabin dee lacagtiina waynu wada leenahay haddaa ka dayn weydaan annana waannu gubi wixii aanu ku qabannona waannu xidhi gaadhigana waannu xidhi oo la wareegi dee markaa caydhnimadu kollay dee waannu wada leenahay laakiin dee ninkii lahaa ee markii gacantiisa ku dambaysay unbay ku hadhaysaa walaahi anigu waxaanu lahaa iska daaye wax yar baa inoo hadhaye horta nimankii dee runtii aad waxaan ugu mahadnaqayaa waxaan aaminsanahay in raggii qaadka ganacsatada markii hore ka ganacsan jirayna sidii lagula ballamay ay fuliyeen baan aaminsanahay waan uga mahadnaqayaa حسين عطية قابنا يونيفرسال تي في بورما